Dr. Abdiwahaab Sheekh Maxamed Kariin oo kamid ah dhaqaatiirta caafimaadka ee magaalada Baydhabo gaar ahaan kuwa dentistayaasha ayaa shaaca ka qaaday inaanay habooneen isla markaana laga dhaxli karo cudurro fara badan masaasada caanaha ee habeenkii lala seexiyo caruurta wuxuuna hooyooyinka ugu digay arrimahaasi inay ka digtoonaadaan oo caruurtooda la seexinin masaasada caanaha Dr. Abdiwahaab Sheekh Maxamed Kariin wuxuu sidoo kale uu sheegay in cudurka ku dhaca ilkaha caruurta inta badan ay ka dhaxlaan masaasadaasi lala seexinayo waa kan Dr. Abdiwahaab Sheekh Maxamed Kariin oo la hadlay barnaamijka caafimaadka ee JTV oo arrimahaasi arrimo kale ka hadlaya qofka mayba muhiim ah inuu sameeyay caafimaadka muhiim ah inta badan fursado suuqyada raadiyay meel Allah haye hadii si macaan isticmaal markii macaan isticmaal sabta isku dayin inuu soo kooyo taasisi ku badbaado cudurka suuska because hadii aan suuska siligi ku wada kalama aan ku baabi'ina meesha qaaday in suuska because waa virus marka inuu si faafada muhiim ah inuu sida tarasel oo suuska baabi'ina ma ka suuska aan isticmaalay مثلا حين داوين كان هالسنين مش أعتقد مثلا sometimes suuska ma la daaweeyo oo doctor ma usul ma bas fayala marka hada doorkiis markaas maraw ma baa sheego koran ka dadka runtii taasina ma inta badan caruurta Soomaaliyeed ayaa ku dhaca cudurrada ilkaha xilliyada ay ku jiraan da'da halka sano iyadoona dhaqaatiirta arrimahaasi ay ku sababayeen cabista masaasada caanaha Istar Maxamed Nuur JTV Baydhabo.